سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وجميل سيدنا النبي وجميل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفدقيني لحاد تحنيه أين وقم قعد الري رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. رسولك الله نبت قليئي نحديثي كركي ساهاتي سيدي أديقو أركيا أمل النول. fadhigan insha allahu tacaala waxaan kaga warrami doonaa dhammaystiraynu dhammaystiri doono dabeecadihii iyo dhaqankii wanaagsanaaye suubanaay rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam iyo sifatu kalaamihi hadalkiisa iyo siduu u hadli jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaynu soo qaadanaynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa waxa weeye dabcigiisu aada iyo aada u wanaagsanaa oo cidna aanu garaaci jirin ama aanu dhibi jirin. caaisha radi allahu tacaala canha afadii nebiga ah sala allahu calayhi wasalam waxay leedahay rasuulka sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam maa daraba biyadihi shay-an qad, gacantiisa weligii waxba kuma garaacin ilaa an yujaahida fii sabiili illaah, inuu jidka alle u jihaadayo oo dadkaa diinta ka gaaloobay uu la dagaalamayo uu gacantiisa wax ku yeeleeyo mooye rasuulku calayhi salaatu wasalaam cid kale gacantiisa kuma garaacin. walaa daraba khaadiman wala mra'a, gabadhna ma garaacin, mid shaqaala oo u shaqeeyana ma garaacin. waxaa kaloo ay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha ay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu naftiisa u argoosan jirin una cadhoon jirin ilaa in maxaarimta iyo xurumaadka ilaahay lagu tunto mooyaane. waxaa leedahay caaisha radi allahu tacaala canha maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam muntasiran min madlamatin qad, maan arag bayti rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam oo ka aargoosanaya oo naftiisa u aargudanaya dulmi la dulmiyey daraaddii weligii maan arag. maa lam yuntahak maxaarimu llahi shay, inta aan xurumaadka iyo waxa ilaahay xarimay aan lagu dhicin ka hor. فإذا انتهكت من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا. هدي إلهي سبحانه وتعالى حدودي سلو حد قدبو وحوها مد آد يآد وعروضة وحوي وارقتا وحقا إلهي لقود عي مد وحوي كعروضة أيها. وما خير أمرين بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. waxay leedahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba shay lama dooransiin ilaa wuxuu dooran jiray labadaa shay ka fudud inta aanu dembi ahayn. haddii uu dembi yahay uu ka fogaan jiray, laakiin haddaan dembi ku jirin labada arrimood marba ka fudud buu dooran jiray. waxaa ka mid ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii suubanaa ee wanaagsanaa, hadiyadda marka wax loo soo hadiyeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa aqbali jiro waa qaadan jiray waana ka abaalgudi jiray. caaisha radi allahu tacaala canha waxay leedahay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yaqbalu alhadiya wayuhiibu calayha. wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam mid aqbala hadiyadda iyo goorta wax loo soo hadiyeeyo uu aqbali jiro, iskama weyneyn jirin, isla markaana waxa weeyaan wuu abaalin jiray oo qofka wax u soo hadiyeeya abaalkaa uu galay isaguna wuu u celin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii suubanaa inuu ahaa deeqsi. jaabir radi allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay, jaabir ibnu cabdillaah saxaabigaas wuxuu leeyahay maa su'ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama shay-an qad faqaala laa. rasuulka ilaahay
sala allahu calayh wasalam weligii shay lama weydiisan kadibna maya ma odhan yacni mayaba ma aqoonin rasuulku sala allahu calayh wasalam haddii wax la weydiisto waxa weeye wuu bixin jiray. waxaa ka mid a arrinka tilmaamaya nabiga calayhi salaatu wasalaam deeqsinimadiisa xadiiskii ibni cabaas radia allahu tacaala canhu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ajwad annaas, rasuulku wuxuu ahaa ka dadka ugu deeqsisan ayuu ahaa. marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sifaysnaa deeqsinimo aanu waxa weeye waxba ku bakhayli jirin sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam. waxaa ka mid ah dhaqankii wanaagsanaa ee nebigu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam xishood, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu xishoon jiray, afcaasha xunxun wuu ka xishoon jiray, aqwaashana xunxunna wuu ka xishoon jiray iyo hadallada xunxun. abu saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu saxaabigaas ayaa wuxuu sifaynayaa xishoodkii nebiga sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka alle wuxuu ahaa ashaddu xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha, wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka xishood badnaa inanta shabadda ah ee gurigeedii iyo qolkeedii ku asturan ee aan dibadda usoo bixin. oo carabtu berigii hore inanta inta aan la guursan waxay ahayd mid qol gaara degan oo qolkeeda aan ka soo bixin oo dibad aan usoo bixin oo aan rag arag. qofka sidaasina waxa weye xishoodkiisu aada iyo aad buu u badan yahay. marka abu saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu ka xishood badnaa inantaa shabadda ah ee qolkeeda ku jirta ee aan ka soo bixin ayuu ka xishood badnaa. wa kaana idaa kariha shay-an curifa fii wajhihi, haddii uu shay karaahiyeysto ama kahda nebigu calayhi salaatu wasalaam muu odhan jirin war waxaa waa necebha iga daaya, ee waxaa laga garan jiray isagoo arrinkaa weliba ka xishoonaya. waxaa laga garan jiray shaygaa inuu kahanayo ama uu necab yahay, waxaa laga qaadan jiray wejigiisa ayaa isbedeli jiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu wabarakaatuhu calayh. waxaa ka mid ah xishoodkiisu sida uu adag ay u daran yahay inay ku sifeeyeen saxaabadu annahu maa kaana yuwaajihu axada bimaa yakrah, qofna kumuu qaabili jirin oo kumuu odhan jirin qofkaasi wuxuu kahanayo ama wuxuu dhibsanayo, laakiin waxaa laga garan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu necab yahay ee uu diidan yahay wejigiisa ayaa laga kahan jiray. waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa wanaagsan xaasaskiisa iyo qaabka uu ula noolaa. xaasaskiisu waxay ku sifeeyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dabeecad aada iyo aada u wanaagsan u lahaa. dabeecada ay ku sifeeyeen waxaa ka mid ahaa sabir iyo dulqaad ayaa ka mid ahaa, oo dhibka kaga imanaya xaasaskiisa uu u dulqaadan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ahaa maalin maalmaha ka mida isagoo rag la jooga saxaabadiisii ka mida oo guryihiisii guri ka mida jooga ayaa waxa ay soo hadiyeysay ama ay soo dirtay xaasaskiisii kale mid ka mida ayaa weel intay cunto kusoo riday bay usoo dhiibtay inan yaroo shaqaalo ah. kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigii kale uu joogay markii cuntadii la keenay ayaa gabadhii gurigaa lahayd ayaa qiirootay oo hinaastay, kadibna weelkii iyo wixii ku jirayba way burburisay. hadda nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu la joogaa rag asxaabtiisi ka mida. waa la dareemi karaya qofku isagoo martii la joogto xaaskiisu dhibka ay u geysataa inuu ka adag yahay ama ka dhibi og yahay markay labadooda keliya yihiin. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba ma samayn, mana cadhoon. wuxuu yidhi ina ummakum qad gaarat, hooyadiin way masayrtay. kadibna cuntadii daadatayna waa la ururiyey, weelkii ay jabisayna gurigeeda laga qaaday oo tii weelka lahayd baa loo geeyey. nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa yare fudud ayuu u xaliyey, kamana cadhoon, mana ciqaabin oo ma odhan waxa weye maxaad sidaa u samaysay, ragga hortiisa maxaad iigu ceebaysay. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam sabir weyn ayuu ku sifaysnaa sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. wuxuu ahaa mid gurigiisa ka dhex shaqeeya oo waxa weeye u roon ehelkiisa oo la shaqeeya guriga marka uu joogo. mu ahayn mid meel iska fadhiisto wax walba yidhaahda hala ii keeno. isagaa shaqaysan jiray, isagaa ehelkiisa caawin jiray. wuxuu ahaa mid waxa weeyaan xagga nafaqada iyo biilka ehelkiisa ugu roono, wuxuu haysto ama wanaag uu hayo kamuu hakran jirin. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu siin jiray.
idan arrimahaasoo dhani waxay tilmaamayaan dhaqanka wanaagsan ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sifaysnaa. weliba inta aynu tilmaamnay waa wax ka mida, ma soo wada koobi karayno dhaqanka wanaagsan ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa. waxaana inagaga filan sidaynu horeba u tilmaamnay fadhiyadii hore in rabbulcaalamiin ilaahay subxaanahu watacaala nebi maxamed abuuray, inagana in abuuray in ilaahay uga markhaati kacay inuu dabeecad wanaagsan uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo weliba weyn inuu ku sifaysan yahay. waxaynu uga gudbaynaa intaa iyadana aynu tilmaami doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa iyo qaabka uu hadli jiray sida ay ahaayeen. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa hadyigiisa marka uu hadlayo hadalka muu dadejin jirin ee wuxuu ku hadli jiray hadal kala saarsaaran oo qofka maqlaya uu xifdihi karayo. waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam muu ahayn marka uu sheekaynayo ama loo sheekaynayo, muu ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam mid aada iyo aada u qoslo oo qosol waxa weeyaan qahqaha leh waxawey ku qoslo muu ahayn, ee qosolkiisu wuxuu ahaa tabasum ama uu muusoon jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dhoolla caddayn ayuu ahaa sida hadyigiisa iyo dhaqankiisa u badnaa. way jirtay mararka qaarkood oo nebigu qosol uu qosli jiray gowsihiisu ay muuqan jireen, laakiin sida badan nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu qoslayo qosolkiisu dhoolla caddayn buu ahaa, dhoolla caddayn ayuu ahaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid asxaabtiisa la kaftama, ha yeeshee hadalka uu kula kaftamaya wuxuu ahaa hadal xaq ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam kaftan dadka dhibaya ama quluubtooda waxyeelaya kulama kaftami jirin nebigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam. wuxuu leeyahay abu hureyra radia allahu tacaala canhu, waxay ku yidhaahdeen saxaabadu rasuulkii allahu waad nala kaftantaayo waad nala ciyaartaa. wuxuu yidhi haa, laakiin anigu xaq mooye wax kale ma idhaahdo. waxaa jiray nin la odhan jiray zaahir oo nebigu aada u jeclaa. ninkaas nin reer miyiga buu ahaa. marka uu miyiga ka yimaado nebiga wuxuu usoo hadiyeyn jiray waxyaabaha miyiga laga hela sida subaga iyo waxyaabaha la midka. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ambabixin jiray oo marka uu magaalada ka dhammaado ee uu baxayo uu sii ambabixin jiray. maalin maalmaha ka mid a ayaa zaahir ninkii la odhan jiray, ninkuna wuxuu ahaa nin yaro fool xun ayuu ahaa. ilaahay khalqigiisa wax fool xuni kuma jiro, laakiin sida basharku ay u yaqaanaan wuxuu ahaa dadka lagu sifeeyo inay fool xun yihiin. marka maalin maalmaha ka mid a ayuu magaaladii yimid isagoo alaab sita, isagoo suuqa jooga oo alaabtii iibinaya ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xagga dambe intuu kaga yimid ayuu sidaa isugu duubay. kadibna wuu naxay zaahir oo wuxuu yidhi wa-ayo qofkay haya, qofkaygu dhegani wa-ayo. markii dambe wuxuu raftaba wuu milicsaday, wuxuu arkay inuu rasuulkii yahay sala allahu alay wasalam. rasuulku isagoo la kaftamaya ayuu yidhi man yashtari minii hada alcabd, addoonkan yaa iga iibsanaya, addoonkan yaa iga iibsanaya. zaahir wuxuu yidhi hadal aada iyo aada u qiimo badan, idan takuunu kaasidan yaa rasuula allah, haddii waxa weeyaan aada aniga beec geysa rasuulkii ilaahayow cid iga kaa iibsan mayside waad igu khasaaraysaa. nebigu wuxuu ku yidhi lasta bikaasid, anta cinda allaahi haalin, ma tihid mid liita oo aan waxba goynayn, adigu waxaa tahay ilaahay agtii qaali baa tahay. marka kaftankaas wuxuu ku tusayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu kula kaftami jiray saxaabadiisa hadal dhab ah oo aan lahayn dhibaato lahayn. waxaa ka mid a islaam baa maalin u timid nebiga calayhi salaatu wasalaam, waxay ku tiri rasuulkii allow waxaad iigu ducaysaa in ilaahay jannada i geeyo. wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam islaani jannada ma gasho. kadibna iyadoo ooyeysa ayay iskaga tagtay. markii ay dhaqaaqday ayuu ku yidhi waxaad u sheegtaan inaanay jannada iyadoo islaana gelayne inay ilaahay shabad uu ka dhigi doono oo xaaladan ay ku sugan tahay waayeelnimada ah inaanay jannada ku gelayn. rasuulka sala allahu calayhi wacala alihi wasalam hadyigiisa iyo dhaqankiisa xagga hadalka waxaa ka mid ahaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu hadlayo hadalka uu ku soo celcelin jiray 3 jeer inuu ku soo celcelin jiray. waxaanu sidaa u yeeli jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam si loo weeleeyo oo hadalkan uu ku hadlayo looga weeleeyo ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku celin jiray. rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadyigiisa iyo dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa hadalka inuu mararka qaarkood abyaad gabay oo cidi tidhi
inuu waxa weeye daliishan jiray amaba uu dhegaysan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. oo saxaabada ka mid a camr ibnu shariid la odhan jiray ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam, aw shariid ibni camr, nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaan la soo fuulay waxa weeyaan tulud uu saaraa ama waxa weeye dameer uu saaraa ayaa nebigu ayuu la soo raacay, oo waxa weeye waa xagga dambe ayaan fadhiyey. deedna wuxuu iga dalbay umay ibn abi salt ninkii la odhan jiray gabaygiisii inaan u tiriyo. gabay baan u sheegay, beyd baan u sheegay, ii kordhi buu yidhi. waan ugu daray ilaa aan 100 beyd u tiriyey. nabigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn shaacir, ma ahayn mid gabya mu ahayn, bale mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inta uu isiraado gabay qof kaliya tiriyey soo qaado inuu jabin jiray oo beydku ka jabi jiray. waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ka nasahay inuu shaacir noqdo, si aan gaaladii ka hor timid aanay u odhan qur-aankan kariimka inoo sheegayo waa shicir iyo gabay uu isagu alifay. marka taa iyadoo lagu beeninayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn mid waxa weeyaan gabya. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkiisu sidaas ayuu u sifaysnaa, hadal xikmad iyo qiimo le ayuu ahaa, mu ahayn hadal iska fara badan. mana ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam mid hadalka badiya oo mar walba iska hadla. hadalkiisu wuxuu ahaa hadal ku salaysan waxa weeyaan baraarujin iyo tawjiihin, iyo in xaqa loo sheego dadka, iyo in wixii anfacaya lagala hadlo, iyo in wixii xaqa lagula kaftamo. sifada noocaas aanuu lahaa hadalka nebigu sala allahu alay wasalam. waxaa halkaa inoogu dhammaaday fadhigii 6aad, taxanihii aynu ugu magac daray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam kaannaka taraah. rasuulkii alleh ilaahay nabadgeliye naxariis korkiisa ha yeele sidii adigoo arkaya ama la nool. wallahu tacaala aclam, wsala allahu wasalama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin.